hablaha warbaan idii hayaa ma ogtihiin inay la wadaagaan dirciina Soomaaliyeed hablaha Kenya iyo hablaha Yemen والله hanid ka dabageey sidan wax u xiran jirnay guntiino ayaa u horeeyay haweenkeena Soomaaliyeed dhar ay xidhaan inta laga soo duubo dhinaca garabka ayaa dabeeta jirka dhan lagu soo wareejin jiray laakiin maxaa loo xiran jiray hortooriisa markeena horeba waxaynu ahay reer guuraa ama reer miyi marka practical ayuu guntiinadu ahaa sababta labaadna cimiladu kul ahay waxa lagu bedelay dirac oo ka yimid dhinaca waqooyi qarnigii 18 kadibna uu ku faafay Djibouti iyo Yemen iyo Kenya oo ay faafiyeen ganacsatadeena Soomaaliyeed haddana waxaa jira wax la yiraahdo baati ama diracshi oo istaal yar oo fudud ah ku habboon nolol maalmeedka hablaha weligiin ma tagteen xaflad ama gathering aan Soomaali ahayn idinku gashan dirciina Soomaaliyeed ها مرر بدن ريكومنت إذن كجوابت اللي قسوية